إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم وتزودوا من دنياكم إلى أخراكم فإنكم غدا ستلاقون ربكم وسيسألكم عن كل كبير وصغير ويحاسبكم على أعمالكم. أيها المسلمون عباد الله khudbaddayna maanta biidn illaahi subxaana wa tacaala waxay dhammaystir u tahay qeybaheedii u muhiimsanaana ay ka mid tahay mowduucii aynu hore uga hadalnay ee ku saabsanaa almalaa'ika. biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu waxoogay tusaalayaal ka bixin doonaa saameynta ay tahay qofka inuu ku yeesho iimaanuhu bilmalaa'ika, rumaysnaanta uu malaa'igta rumaysan yahay, iyo midhaha ay tahay qofka muslimka ahi inuu ka goosto uu ka faa'iido iimaankaas. sidaynu hore u sheegnay iimaankaasi maaha macluumaad qofku uu ogaanayo malaa'igta ku saabsanuun. waa iimaan la rabo an yuhmira lilmu'mini hamaraatin طayiba tanfacuhu fii dunyaahu wa ukhraah. iimaan la rabo qofka muslimkaa inuu ka goosto midho anfaca adduunya aakhiraba. waxa kow ka ah macrifatu cadamati اllaahi subxaanahu wa tacaala wa qudratih. addoonka malaa'igta rumeeya axwaashoodana aqoon u yeeshaa wuxuu ku garanayaa ilaahay weynidiisa iyo rabbi subxaanahu wa tacaala awooddiisa ballaadhan. lianna cadamata almakhluuqi tadulu calaa cadamati اlkhaaliq walianna qudrata almakhluuqi naatijaة can qudrat اllah. waayo makhluuqa weynidiisu waxay daliil u tahay allaha abuuray subxaanahu wa tacaala weynidiisa. awoodda uu makhluuqu leeyahayna waxay ka dhalatay ilaahay awooddiisa. walaa yaqdiruuna ila calaa maa aqdarahum allahu calayh. wax ilaahay uu karsiiyey oo awooddiisa u yeelay mooyaane wax kale makhluuqaadku ma awoodaan. malaa'igtu inay yihiin makhluuqaad waaweyn ayaynu ku aragnay axaadiistii aynu maqalnay oo rasuulku uu sheegay in malag malaa'igta ka mid oo xamalatulcarshiga ka mid ah dacasha dhegtiisa iyo degtiisa inta udhaxaysa ay tahay masaafo 700 oo sannadood la socdo. hada daliilu calaa cadamati hada almakhluuq wa cadamatuhu daliilu calaa khaaliqih. makhluuqa weynidiisay taasi daliil u tahay. makhluuqa weynidiisuna waxay daliil u tahay allaha khaaliqee abuuray weynidiisa. malaa'igtu waxyaabo badan bay awoodaan oo ay ka mid tahay almudaawamatu cala alcibaada, inay wakhtigooda o dhan cibaado ay ku jiraan, iyo inuu ilaahay awood u siiyey in ay waxyaabo kale oon abuurkoodii dhabta aha aan ahayn ay isku suureeyaan, iyo inuu ilaahay u siiyey awood surcat lintiqaal, inay si dhaksa oo deg dega meel uga tagaan oo meel kale ay u gaadhaan, inuu ilaahay awood u siiyey shaqooyin waaweyn oo adag inay qabtaan.
ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed maalintii daa'if lagu dhibaateeyey wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray malakuljibaal waxaana malakuljibaal uu sheegay isagoo ilaahay ka socda haddii nebi maxamed uu jeclaado uu doono labada buuroodee waaweyn inuu ku gembiyayo oo uu ku daboolayo waa malag qura qowmu luut malag baa dhulkii ay deganaayeen gebigiisiba fujiyey samada markii uu ku dhoweeyey ayuu soo afrogay taasi awoodda ilaahay malaa'igta uu siiyey bay tusinaysaa qofka muslimka ahina weynida makhluuqa waa inuu ku garto weynida ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo makhluuqaad sidaasi u waaweyn haddana ilaahay subxaana wa tacaala kama maarmaan oo weynidooda iyo awooddoodu may gaadhsiina ilaahay ka maarmaan ilaahayna subxaana wa tacaala amarkiisa ma khilaafaan rabbina iskama kibriyaan bal ilaahay wuxuu inoo sheegay markay sawdka ilaahay maqlaan malaa'igtu inay suuxaan xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir markay ilaahay sawdkiisii maqleen oo malaku jibriil wax faraya malaa'ig kasta oo samo joogtay way suuxeen markii ay soo miraabeen bay isweydiinana ilaahay muxuu yidhi malaku jibriil baa u jawaabo o yihi qaala alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir qowl xaqa buu ilaahay yidhi ilaahayna waa ka weyn ee sareeya taasina waa daliilu calى tawxiid اllahi subxaanahu wa tacaala waanahu laa yushrikuhu fii rububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi axad ilaahay kelinimadiisay taasi daliil u tahay iyo ilaahay rabbinimadiisa iyo macbuudnimadiisa xaqa ah iyo magacyadiisa wanaagsan wanaagga badan iyo sifaatkiisa dhamayska tiran cidina inaanay la wadaagin oo iyagoo malaa'igtu makhluuqaad waaweyn haddana ilaahay wuxuu muujiyey inaanay wax walba awoodin wax walbana aanay u adkaysan karin si ay u muuqatay inay yihiin makhluuqaad ilaahay kuwa caabudaa in la caabudana aan xaq u lahayn haddii la caabudana ay noqonayso in xaqii ilaahay subxaana wa tacaala la siiyey ayuha almuslimuuna cibaad allah aliimaanu bilmalaa'ika waxaynu ka baranaynaa an natashabbaha bihim fii طaacatihim lilahi subxaanahu wa tacaala waimtihaalihim liawaamirih wa xirsihim calى cibaadatih waxaynu ka baranaynaa inaynu malaa'igta aynu ku dayanno aynu kaga dayanno adeecista ilaahay adeecaan amarkiisa ay qaataan iyo cibaado wanaagga iyo cibaado badnaanta ilaahayna wuxuu cibaadada inoogu sheegaya waa taas in aladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna can cibaadatihi wayusabixuunahu walahu yasjuduun malaa'igta ilaahay agtiisa joogta oo makhluuqaad samada sare degan oo innaga ilaahay way inooga dhow yihiin xagga deegaanka ilaahay wuxuu yihi iskama kibriyaan ilaahay cibaadadiisa yusabixuunahu walahu yasjuduun ilaahay bay nasahaano xumaan oo dhan ay ka hufaan ay u tasbiixsadaano intaa subxaana allahi bay leeyihin ilaahay bay subxaana wa tacaala u sujuudaan maxaa laynoogu sheegayaa inaynu kaga dayanno caabudista ilaahay caabudayaan iyo amarkiisa ay qaadanayaan iyo adeecista ilaahay ay adeecayaan iyo tukashada ilaahay u tukanayaan ay u rukuucayaan oo ay u sujuudayaan ujeeddada laynoogu sheegaya taas ayaa ka mid a nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku uhi saxaabadiisa fii yowm min alayaam alaa tasufuuna kama tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydaan isu saf ahayn markaaad salaada tukanaysaan siday malaa'igtu rabbi agtii markay u tukanayaan ay isu safaan qaaluu kayfa tasufu lmalaa'ikatu ya rasuula allah rasuulka ilaah malaa'igtu siday isu safaan ayay saxaabadu yidhaahdeen qaala calayhi الsalaatu wasalaam yutimuuna sufuufa alwal safo safka uu ka horeeya ayay dhammaystiraan wayataraasuuna fi saf markay isa safaana mid waliba ka kale ayuu dhinaca ku dhajiyaa oo kama tagaan meel bannaan oo u dhaxaysa cibaado wanaagooda ayay taasi ka turjumaysaa innagana waxaa laynoogu sheegayaa inaynu kaga dayanno aliimaanu bilmalaa'ika waxaynu ka baranaynaa ilaahay nicmada uu ina siiyey haddaynu nahay bani aadamka
makhluuqaadka inaga aadka inooga waaweyn ee inaga awoodda badan ee inaga cibaadada iyo adeecista badan ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala inaga inoo sakhiray oo ilaahay subxaanaه wa tacaala inaga abuuristeenna iyo suuraynteenna u diray oo rabbi subxaanaه wa tacaala inay roobka ka shaqeeyaan biamri illaahi waidni ay kaga shaqeeyaan iyo nabaadka dhulka ka soo baxaaya ilaahay wuxuu u diray in ay goobaha aynu ku cibaadaysanayna ay yimaadaan oo inaga ilaahay ay noo baryaan oo rabbi subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf ay noo weydiiyaan ilaahay wuxuu u diray inaga inayna ilaaliyaan qaala allahu subxaanaه wa tacaala lahu mucaqibaat min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri اllah qof kastoo bani aadama malaa'ig baa isu weydaaranaysa marka raacay tagaanba raac kalaa soo weydaaranaya xaraska iyo ilaalada rabbaanigaabaa isu bedelaysa ilaahay amarkiisa iyo qofka bani aadamka ay ku ilaalinayaan halkaa markaad huruddo ead khuurinaysa afka kala hayso malaa'ig baa ku ilaalinaysa ilaahay amarkiisa ayay kugu ilaalinayaan kullu hada ya cibaad allah yaxuثuna calى shukri اllahi calى hadihi الricaayati wاlxifd arrinkaas wuxuu inagu dhiirigelinaya ilahay inaynu uga mahadnaqno ilaalintaa ilaahay malaa'igta uu inagu ilaaliyo diin ahaan iyo adduuny ahaanba ilahay uu inoogu ilaaliyey oo rabbi subxaanaه wa tacaala arrinka noocaasa aynu ku ammaano oo acmaal saalixa oo nicmada ilaahay jawaab u ah inaynu la nimaadno oo aynu ku dadaalno ayuha almuslimuuna cibaad allah alimaanu biاlmalaa'ika waxyaabaha aynu ka baranayno waxaa ka mida an natadakara biاlmowt wa biاlaakhirati wa biاljannati waاnnaar inaynu geerida xusuusanno waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa inuu malag inoo soo diro nafta inaga qabta qof kastoo nafta laga qabto malaggaasuu ilaahay usoo diray ilaahay baana awood u siiyey iyadoo dad fara badani ay dhimanayaan caalamkan ay ku dhimanayaan wakti isku mida meelo kala duwan oo kala fog inuu shaqadaa hal mar uu qaban karo adiguna awooddaada ha uga qiyaas qaadanin qiyaaska noocaasii sax ma aha haddaad awooddaada uga qiyaas qaadato warkaa ilaahay baad beenin doontaa waxaad odhan doontaa say suurtagal ku tahy ila adiga ayaa isku fuudhiyo isku qiyaasaye qiyaaska noocaasiina sax ma aha ilaahay wuxuu yihi qul yatawafaakum malaku lmowt aladii ukila bikum waxa idin oofsanayo nafta idinka qabanaya malakulmowtka ilaahay hawshaa iyo shaqadaasi uu diray taasi qofka muslimkaa waa inay geerida xusuusiso oo ay sabab ugu noqoto inuu ka toobad keeno dembiyada iyo khaladaadka iyo dulmiga iyo gafka uu isku og yahay geeridaa sugaysa ee loo sheegay la xusuusiyeyna waa in uu u diyaar garoobo oo u sahay qaato waxa ka dambeeya ee xisaab iyo abaalmarina xatى إida jaءa axadahm اlmowt tawafathu rusuluna wahum laa yufarituun halkana ilahay wuxuu ku sheegay jamc malaa'iga malaa'igtu waa ilaalinayaan laakiin ilahay qadarkiisa kama ilaalin karaan mid bani aadamka ka mida marka ajashiisu ay gasho oo cumrigiisu uu dhammaado ilaahay subxaana wa tacaala waxaan usoo diraa buu leeyahay malaa'ig oofsanaya waa malaku lmowt waa acwaanu waa malagga nafta ka qabanaya malaa'igtaa kale caawiyayaasha u ah qofkaa nafta laga qabanaya wuu arkayaa indhaha ayuu ku hayaa laakiin dadkan kale la jooga arki maayaan arrinta noocaasana qofka muuminkaah waa rumaynaya awoodaha ilaahay baanay ka mid tahy indhahan ilaahay baa maamula oo laba indhood oo isku mid a ayuu ilaahay midna wax tusayaa ta kalena aanu tusahayn haddaad tidhaahdo say ku dhacaysaa qofkan sii dhimanaya inuu arko kuwan kale la joogaan aanay arag qof warkii ilaahay beeniyey baad noqonaysaa iyo warkii rasuulka waxaanad noqonaysaa qof caqligiisa gaaban ku isticmaalaya arrimaha qeybka ee warkooda laynoo sheegay laakiin inaga qarsoon miyaanad ogeyn indhahaaga inuu ilaahay maamulo oo markuu doono ilahay aragga uu kaa qaadayo markuu doono uu soo gaabinayo oo dadka araggooda ilaahay markuu doono uu kala duwayo oo wax mid u cadoo si cad uu arko ka kale la joogaa aanu arkahayn haadihi qudrat اllah ya cabd allah tunkiru qudrat allah waa ilaahay awooddiisii ma ilaahay awooddiisa ayaad diidaysaa aqulu qowli hada واstaqfir اllaha lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wla cudwana ila clى الظaalimiin
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله. arrimaha aynu ka baranayno rumaynta malaa'igta iyo midhaha aynu ka goosanayno waxaa ka mida inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka xishoonno malaa'igtana aynu ka xishoonno oo qofka muslimka ay u dareensanaado inay jiraan malaa'ig aan marnaba ka faaruq ahayn. maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid yaxsabuuna ana laa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qof kastoo bani aadama laba malag baa xaadir ku ah, wax kastoo uu ku hadlana way maqlayaan waanay qorayaan. bal xataa ilaahay malaa'igta wuxuu u muujiyey waxaa dadka quluubtooda ku jira dadku ay doonayaan ay ku haminayaan, suu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay malaa'igtu inay yihiin kiraaman kaatibiin, ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin, oo kuwayna ilaalinaya. waxaynu ku hadlaynay waxaynu samaynaynaba goobjoogga waa diiwaangelinayana ee qoraya saa rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay. khayr iyo shar waxaad sheegaysaba ama aad ku hadlayso ama aad samaynaysaba xaadir bay ku yihin. waana addoomaha ilaahay ee ilaahay kiraam uu ku tilmaamay iyo cibaadun mukramuun. waxay mudan yihiin xumaanta inaad kala xishooto. waxay taasi qofka muslimkaa iimaankaasi uu xusuusinayaa an yuraaqib allaha subxaana wa tacaala. haddii malaa'igtu ay kula joogaan waxaad samaynaysa iyo waxaad ku hadlaysaba ay qorayaan, ogo waxaa ka sii sarraysa ogaalka ilaahay uu xaalkaaga og yahay iyo araggu arka iyo maqalka uu maqlayo. waxay qofka muslimkaa ku dhiiri gelinaysaa inuu istiqaamo iyo toosnaan ku dadaalo oo uu iska ilaaliyo malaa'igtu inay ku arkaan ama ay ka maqlaan xumaan ay u diiwaangeliyaan. dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala maalinta la horgeeyo addoonku uu ka murugoodo oo aada iyo aada uga naxo. waxaynu ka baranaynaa aliimaanu bilmalaa'ika, inaynu ku dadaallo meelaha malaa'igtu ay yimaadaan oo ah meelaha iyo goobaha khayrka, halka ilaahay kitaabkiisa lagu akhrinayo, lagu fasirayo, lagu akhrinayo, halka ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusaayo. oo rasuulku wuxuu inoo sheegay inay jiraan malaa'ig wareega, waxa ay doonayaan waa goobaha ilaahay lagu xusayo. markay arkaan bay isu yeedhaan oo ay yidhaahdaan kaalaya, dantii aada u socoteen halkan ayay taalla. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa: maa jalasa qowm fii beyti min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa naزlat calayhim الsakiina wagashiyathm الraxma waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah. qofka fadhiista guryaha ilaahay ka mida waa almasaajid, oo ilaahay kitaabkiisa akhrinaya ama ilaahay subxaana wa tacaala xusaya. afar abaalmarinood oo uu helo ayuu rasuulku sheegay: xasilooni xagga ilaahay ka timi inay kusoo degto, raxmad ilaahayna inay daboosho, malaa'igtuna inay kusoo ururaan ay hareereeyaan, ilaahayna inuu u ammaano malaa'igta baleega addoommahaygaasi ay kitaabkaygu akhriyayaan, siday ii xusayaan baleega, siday ii ammaanayaan baleega. almalaa'ika majaalista khayrka sidaasa khudbadan iyo salaadan jumca oo kale inay yimaadaan, weliba hore ay u yimaadaan oo dadku se usoo kala horreeyeen ay u qoraan ayuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. taasina waxay nagu dhiiri gelinaysaa in salaada jumce goor hore qofku uu yimaado oo uu ku soo kallaho, oo aanu noqon qof khudbadoo socota ama waktigeedu uu dhow yahay uu masaajidka soo gala. cibaadaad badan baa ka horeeya khudbadda jumcaha, oo ay ka mid tahay qofku inuu tukado maa kutiba lahu min asalaa, wixii ilaahay uu yasiro u fududeeyo ee salaada, inuu salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam farabadiyo yowm aljumca siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagu amray, inuu xuska ilaahay badiyo, inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu baryo, inuu salaada jumcaha iyo khudbadaba nafta usii diyaariyo oo iimaankiisa iyo khushuucdiisa iyo u diyaargarowga khayrka oo kor u kacay la gaadho waktigii uu khudbadda dhegaysan lahaa, dabeetana uu ku dhegaysto dhaga soo jeediyo qalbi u furan oo khudbaddu ay anfacdo saameyn ay ku yeelato. saasoo kale salaaddii inuu ku tukado bikhushuuc, isagoo khushuucsan oo qalbigiisu xagga ilaahay subxaana wa tacaala uu jeedo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, aliimaanu bilmalaa'ika wuxuyna xusuusinayaa jannada iyo naarta.
iyo aakhiriyo sortaagga ilaahay subxaanaه watacaala oo labadaba malaa'ig baa lala xidhiidhiyey ilaahay jannada maruu ka hadlay wuxu uhi wاlmalaa'ikaةu yadkhuluuna calayhi min kuli baab salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqba اdaar ahluljannaha malaa'ig baa albaab wala albaabada jannada ka mida uga soo gelaysa way salaamayaan waxaanay ku ammaanayaan cibaadaadkii ay samayn jireen sabirkaanay si gooniya u xuseen waayo cibaado sabir la-aan la samayn kara ayaan jirin oo cibaadadu in lagu sabray u baahan tahay macsiyaduna nafta in laga sabirsiiyo laga xabiso laga xidho qadarada ilaahay u xanuujiyaana sabir in lagu qaabilay u baahan yihin wax qof la siiyo waxa u weyn u qiimo badan weeyaan sabirku ولهذا يقول رسولك عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قفنا لمسي وحد لسيو وكان نفع بدن كان بلارا صبرك نار تصدى صوك الأيضا ملائكة أيها للحريري وإلهي سبحانه وتعالى وحشاقي أهل النار كي ملائكة يقول كد بتشيرا إني نار تكشو بالدوران إنو تشيرون ملك إلهي نار توحل صاري oo kii doona inuu ka soo baxaba madaxa ka garaacaya isagoo amarka ilaahay ku shaqaynaya wax ilaahay u dirayna qabanaya taas waxayna xusuusinaysaa jannada iyo naarta waxaanay taasi inagu dhalinaysaa jannada asbaabtii lagu geli lahaa iyo waddooyinkeedii inaynu marno naarta iyo gelitaankeeda waxaa sababay in badan laynoo sheegayna inaynu ka dadaallo inu iska ilaalino hadduu inaga dhacana inaynu ilaahay subxana wa tacaala inuga toobadkeenno aliimaanu bilmalaa'ika wuxuu inagu dhalinayaa malaa'igta inaynu jeclaano oo malaa'igta waxaynu ku jeclaanaynaa inay yihiin cibaadun mukramuun addoommo ilaahay uu maamuusay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay adeeca ilaahayna aan caasin ilaahay daraaddi ayaynu u jeclaanaynaa waxaynu ku jeclaanaynaa nafciga iyo waxtarka ay malaa'igtu inoo leeyihiin mid diineed iyo mid adduunyaba waxaynu ku jeclaanaynaa in ilaahay dembi dhaaf inoo weydiiyaan ay inoo duceeyaan dadka muuminiinta ah wayastakfiruuna liladiina aamanuu buu ilahay isagoo malaa'igta ka hadlaya waxay ilaahay dembi dhaaf uga dalbaan dadka muuminiinta ah arrintaa lafteedana waxaa ka dhalanaya qofka muslimka ah inuu ku dadaalo waxyaabaha sabab u noqonaya malaa'igtu inay u duceeyaan ilaahay dembi dhaaf inay u weydiiyaan waxyaabahaasi waxaa ka mid ah halka uu ku tukado markiiba inaanu ka kicin oo aan albaabada masaajidada aan la boobin ee qofku halkii uu ku tukaday uu kusii nagaado isagoo ilaahay subxaana wa tacaala xusaya weliba weysadana ilaashanaya oo rasuulku wuxu uhi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina almalaa'ikata la yusalluuna calى axadikum maadaama fii musallaahu maa lam yuxdith yaquuluuna allahuma kfir lahu allahuma arxamhu malaa'igtu midkiin way u ducaysaa oo ilaahay bay dembi dhaaf u weydiiyaan iyo raxmad inta uu fadhiyo halkii uu ku tukaday ee aanu weyse jabin ee weli uu weyse qabo marka mar kastoo aad sii fadhido halkii aad salaada faralkaa ku tukatay xataa gabadhu markay gurigeeda ku tukanayso halkaa gurigeeda ka mida ay ku tukatay mar kastoo ay sii fadhido malaa'igta ayaa u ducaynaysa oo ilaahay u dembi dhaaf ilaah u naxariiso ilaahayna ducadooda waa aqbalaya oo addoomaha ilaahay wanaagsan weeye oo mustajaabu dacwa ah arrimaha iyo kuwa la midka ah qofka muslimka waa inuu ku dadaalo malaa'igtu waxyaabaha ay dhibsadaan baa jira oo xumaan ay leeyihiin awgood ay u dhibsadaan qofka muslimka waxyaabahana waa inuu ka fogaado waxyaabaha ay malaa'igtu dhibsadaan waxaa ka mid ah الصور والكلاب sawirada la sawiro waxyaabaha ruuxda iyo nafta leh iyo ayda oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kama fi saxiix in malaa'ikata laa tadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma gasho guri ay dhex joogo ama sawir uu dhex yaallo malaa'igta la sheegayaana waa malaa'ikatu raxmati watabriik oo malaa'igtii ilaahay qofka noloshiisa uu ku barakaynayey raxmadda ilaahayna addoonka u siday ee malaa'igtoo dhan ma aha oo malaa'igta addoonka wax ka qoraysaa haddii ay guriga u ka buuxsado iyo hadday sawirro u tuulan yihiin marnaba kaga istaagi maayaan wakadalika malaku lmowt wa acwaanu malagga nafta ka qabta bani aadamka
iyo malaa'igta kale caawisaana kaga joogi maayaan ay iyo sawirtoona oo malaa'igtii waxay isaga anfacaya wuxuu taraya la socotay ayaa labada arrimood guriga ay ka celinayaan ay iyo sawir oo dhanna maaha waa ayga aanay shareecadu ogolayn in la dhaqdo saddex ayuun baanay shareecadu ogosha in la dhaqdo ayga wax ilaalinaya tusaalaan guriga ilaalinaya ama beerta ilaalinaya ama xoolaha ilaalinaya ayga lagu ugaadhsanayo markaa kalbu maashiyatin wa kalbu xarhin wa kalbu saydin wixii la macnaahina waa la xukun ayga lagu ugaadhsadiyo ka beerta ilaaliya ka xoolaha nool ilaaliya kuwa shareecada fasaxday oo malaa'igtu qofka kaga istaagi mayso sawirka la sheegayana waa sawirka la sawiro waxyaabaha ruuxda leh in albanno wax baahiyoo loo qaba aanay jirin guriga la dhigto ama gidaarada sawiro laga lulo taas bay malaa'igtu gurigaaga uga maqnaanaysaa malaa'ikatu raxma watabriik laakiin sawirka ee daruura keentay ama xaaja ay keentay shareecadu qofka ay u ogolayd ka maqnaan mayso maxay sawirka ku diideen malaa'igtu waayo waa macsiyo qabiixa weeye in wax la sawiriyo sawir in la dhaqdaaba waa macsiyo aad iyo aad u foolxun oo dembi weyna oo qofka wax sawiray wuxuu isku shabahay ilaahay subxaana watacaala waxay ka dhigan tahay inuu leeyahy siduu ilaahay wuxuu abuurabaan aniguna wuxuu abuuraya sawiraduna waxay ka mid yihiin wasaa'ilu shirki waddooyinka shirkigu bani aadamka u soo maro oo sawirka aabbaha ama awowga oo 10 sano ka hor dhintay markaad guriga aad ka lusho ama aad dhex dhigato waxaa dhici karta walow fi lmustaqbali albaciid mustaqbalka fog baa noqotee in bani aadam shaydaanku uu ku lumiyo sidii raggii qowmu nuux ka mid ah ee saalixiinta ahaaba taalooyinkii iyo sawiradii taalooyinkooda la suray shaydaanku uu ugu lumiyey qoomkaas oo arrinta noocaasi ay sabab iyo waddo ugu noqotay in markii dambe la caabudo ilaahay subxana wa tacala sukana aygana waxay ku naceen lannu aygu waa najaas najaasaadkana uu cunaa barhkiina shaydaan baaba lagu sheegay sida ka madow malaa'igtuna shayaadiinta waa neceb tahay xumaan uu leeyahay awgeed bay malaa'igtu u naceen oo guryaha markaanay ugu soo gelahayn malaa'igtu waxyaabaha ay dhibsadaan waxaa ka mid ah waxyaabaha urta qarmuun leh walihaada baa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sida muslim saxiixa ku wariya can jaabirin wuxuu uhi man akala huuman aw basala aw kuraaثa laa yadkulana laa yatiyana masjidana faina almalaa'ikata tata'adى mima yata'adى minhu banu aadam qofka basal cuna ama toon cuna ama cuna geedkan kale kuraafka la idhaahdo isaguna urtiisu aanay fiicnayn waa 3 geedoo xalaala nafcina leh laakiin raayaxadooda ayaan wanaagsanayn iyo urtooda yaanu masaajidkayga iman buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood wal yusalli fii beyti gurigiisa iskaga tukado jamaacadaha ka hadha xataa hadduu nin yahay waayo bani aadamkii ilaahay caabudayo masaajidka isugu yimid taasi way dhibaysaa malaa'igtuna waxay dhibsadaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu bani aadamku dhibsado urtaa qarmuuni way dhibaysaa majlis markaa malaa'ig laga waayena waa majlis khayr iyo wanaagu ka maqan yahay wixii xagga urta 3da xadiidka lagu sheegay lamida ama ka sii daran sida sigaarka waa ka ur qarmuuyi in masaajidada lala yimaado ama banaana waxaa la mida qofka sharabaadadiisu waxa weeyaan ay urayaan ama qofka isaga laftiisa dhidid iyo shuruuf qarmuun ay ka soo baxayso waa inuu iska maydho oo isagoo nadiifa masaajidka u yimaado si aanu addoomaha ilaah iyo khalqiga ilaahay ee dad iyo malaa'ig bale aanu u dhibin haddaana waxaasi ka ba'ahayna waa inuu gurigiisa iskaga tukado saasaa u khayr badan guud ahaanna goobaha cibaadada nadaafadooda in la ilaaliyo ayaa xadiidka iyo kuwa lamidka ahi ay aad inoogu dhiirigeliya goob kastoo dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan walihaada fahamka fuqahadeenna u fiirso waxay sheegaan meedhashooyin badan oo qaar ay axaadiida ku soo arooreen kuwa kalena axaadiid iyagoon ku soo aroorin culimmada uga qiyaas qaateen waayo ciladii kuwa axaadiida ku soo arooriya sababtii loo sharciyeyba kuwan kalena ku jirta nebiga xadiid saxiixoo ka sugnaadoo tilmaamaya ciidda in loo maydho ma jiro
haddana culimadu waxay leeyihin labada ciidood ba in loo maydhaa waa sunne waayo qofku wuxuu tegayaa goortii ay muslimiintu isugu imanayeen marka inuu isnadiifiyo oo uu isqurxiyo ayaa la gudboon xataa carafo waxa weeyaan in istaagga carafo loo maydho iyo meelo kaloo fara badan oo lamida salaatulistisqaaba iyaduna lamida ayay fuqahadu sheegaan oo meel kastoo dadka muslimiinta ay isugu imanayaan qofka muslimka ah iyadoon la karaahiyeysanayn oo la dhibsanahayn oo ur qarmuuli aanay ka soo baxahayn inuu yimaado weeye oo reer madiine beerale bay ahaayeen waxaa dhacday in saxaabada qaarkood iyagoo shaqadii beeraha ka soo baxay masaajidka ay yimaadeen markaasaa rasuulka dhididkoodii iyo waxbaa soo gaadhay rasuulku wuxu uhi hal iqtasaltum miyaad soo maydhataan buuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam walihadaba yowm ljumuca in loo maydho la sunneeyey culimada qaarkoodna waajib inuu yahay ayay ku tegeen ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ka baranaynaa aliimaan bilmalaa'ika waxa kibirka la yidhaahdo inaynu meel iska dhigno oo macnihiisu laba ku soo ururayo xaqa inaad aqbali weydo marka lagu sheego oo aad iskala weynaato iyo khalqiga ilahay inaad xaqirto hoos aad u eegto labadaaba iska ilaali malaa'igtu iyagoo makhluuqaadka waaweyn isla markaana ilaahay u dhow subxaanahu wa tacaala ilaahayna uu sidaa u ammaanay arrinta noocaasi kibir iyo isla weyni marnaba kumay dhalin wax allaala wuxuu ilaahay u sheego way aqbalaan amarkiisana way qaataan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun khalqiga ilaahayna ma xaqiraan oo bani aadamka oo ka awood yar iyagoo ay ka cibaado badan yihin ilahayna ay uga dhow yihiin waa kuwa u khidmeynaya u adeegaya iyagoo amarka ilahay ku shaqaynaya ma xaqiraan muuminiinta saalixiinta hoos uma eegaan innagoo ah makhluuqaadka yaryar ee daciifka ah kibirku ceeb buu inagu yahayba waxaynu la kibirnaaba meesha ma yaallaan awooddeennu intay la egtahay waynu aragnaa taagteennu intay gaadhsiisan tahayna way noo muuqataa ilahay agtiisa darajo aynu ku leenahayna ilaahay baa og allahu aclam wax markaa aynu isku kibrinaaba meesha ma yaallaan inay noqono mutawaadiciina lilxaq walilkhalq ayaa waajib inagu ah ilahay subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa inuu iimaanka inoo quweeyo darajooyinna kor inoogu qaado dembigana ilaahay subxana wa tacaala inuu inoo dhaafo allahuma zidna iimaana watuqan allahuma ina nasaluka almucaafaata fi اdunya wاlaakhira allahuma hdina wasadidna اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك نعيم القبر والجنة ونعوذ بك من عذاب القبر والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلح أمتنا وأصلح ولاة أمرنا اللهم اجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم عليه اللهم وفقهم يا ربنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا اللهم وفقهم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا اللهم وفقهم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أذهب عنا البغضاء والعداوة والحسد يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا إخوة مؤمنين متحابين لأجلك اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم بارك لنا في بلادنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ أمنه واحفظ دينه وافتح عليه بركات السماوات والأرض يا أرحم الراحمين اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد